iskadabu sene dinigo haskul jesne iskadabu sene dinigo haskul jesne digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune iskadabu sene dinigo haskul jesne iskadabu sene dinigo haskul jesne digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune disfrutar digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune iskadabu sene dinigo haskul jesne iskadabu sene dinigo haskul jesne digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune kabil kan dewi diwingan tersie dalam kora di sendoro kabil kan dewi diwingan tersie dalam kora di sendoro digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune digo idan ko ena banshore ni sumse ay gune iskadabu sene xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo lagu qabtay qaacatul mutamaraad oo howlka loogu talagalay shirarka caalamiga ah. xafladan oo daba joogtay xaflad taariikhi ah oo waayahan lagu qabanayay shanta qaarad adduunka iyo meel waliba ay ku nool yihiin beelaha digal iyo midifle. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen xubno sare ee jaaliyadda digal iyo midifle oo ka kooban aqoon-yahano, saraakiil, haween, dhalinyaro. xafladan oo ay qabanqaabadeeda in muddaha ka socotay magaalada qaahira ayay suuro gashay in la qabto ugu dambeyntii. xafladan waxaa ka soo qayb galay xubno magac ku leh dalka Soomaaliya iyo magaalada qaahiraba. haddaba daawadayaal, xafladan ayaa waxaa lagu doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xogeyn, iyadoo guddoomiyaha beelaha digal iyo midifle ee magaalada qaahira loo doortay ibraahim sheekh abikar iyo xasan ibraahim oo loo yaqaano xasanunow. xagga xogayaha maaliyadda loo doortay xasan ibraahim xasan taliye. ustaad cabdisamad macalin axmed ayaa loo doortay xogayaha wacyigelinta arrimaha bulshada, halka xaawa nuur xasan loo doortay guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. إلى ما تيجي مع عثمان أو أيضا قرآن يأخذ إلهي عفوا إن شاء الله. markay daskuleed shirkada ujeedadiisa kuwiin way tahay oo dadkii jaaliyadda oo wadanka ganacsiga nool sidii oo weyn u qoran badan caafimaadkooda oo arlaada ku jirta iyo warbarashadaanta oo yani arlaada ku jirta jiilku hadaahayo tumayda wasara daskuleedka iyo arday liingarka oo jaamacadda ku siisay oo barabara iyo arday oo ziyada gobolada ay arday si wanaag u qoran badan iyo arday barnaamijyada التسكوير يعني عندنا ما يأتي بطيان يأتي بيلوم من المحاضرات هذه الآيات وأساس في يأتي جديد ويمشي بيلوم الآيات السمد مع أحمد هذه الآيات إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتي أبو كيف قالي أو زمان جديد تدري مرحلة إذا ما سنتي سدش شرفت له ولا قبل نسي أبو كيف قالن كل نبى جفتي سدس مكتين قلت يو بدنيا أو رمسنا جديد تدري مرحلة مركز ساعات جفتي مركي أو سني لفظاي فوقها si oo ka talgal in shaqo ay la ariyay qiimaha sulfurdeena oo odayaasha iyo waxgaradkii qayrooyi jaalidii markadkii kumida dhamaantiyo inay jaalid markaa iskuweera oo macnaha la suubiye guddi iyo gudoomiyaal oo cusub si oo macnaha dhisda nidaam fayda oo hooseeda kora dhammaan jaalidii markada oo ka nool qaayra markaas aragtay meeba bidisiida tawood iyo tawoodi لواتي يا بلد نسكوي قولي أو شيخ عبد السلام شيخ سيدو وكيال سابع مدينة نصر مركز الضمان أبو كيم قالي أو نسكجرام وحكرت يو أضياء رقعداء يو أخويانا يدو دوائي الأرقة سأفتي ميبا دكي أو ياشي حكر لنا فرقفر أو نحيط ساري إني يو بيلاس أبو بصدان دكتو معنا أخو مقرر قولها يو أديك جاري تدريب إمرأة أفتي قفوا مكي مبا يوم هدول لنا مكي عمر يعني مكي حكومة كرام حولهاس أو كمية دكتور وطنكم هروي مكفيل سأفتي دكتي مدري ميلان استسارم يلو جوال إيش أمكير هاي دكتور نمكيب كرام يا مبا عشرة دولار لنا متوجد مكي وابهان مبا هجيلينا waxyaabihii iyo guddigii gudoomiyihii oo macnaha jaariidkii marxada iyo ku-xigeenshi iyo qasnifigii marka dadkii kulli ku qeyb galay oo meelaashoodirooy dhammaantiyo meebaa ka dhawaayna sacab iyo farxad iyabaa ka dhawaay iyadana ka faraxay marka kulley guddigii meelkaa ka dhisay maalintaas oo ahay tilaatii jadida sideedada 2007 oo ilaahay geeyay macnaha masuuliyadii inii oo antin iskoyna guddiga macnaha si oo waxyaabi iyo raadisni kulli lagu sheegay dadkii jaaridiina la bara saadabtiye meeba la kabalamay inii oo qof walba oo guddiga iyo gudoomiyaasha kumida inii oo gudu doonaan xegsho sidii la targa lawadini aan ku baha saasala kabalamay kulli geeyay tansi arbaha kama barnaamijka kulli aad bilaawdi midooga kulli wasi ahgal doon ila dhammaansi kulli arga doon kulli meeba rajaynayni si oo farxad oo la qanacsiin oo liifurnaayo isaacad isfayda ka dhawaaytoona waqtada kulli oo jeedada kulli ma jirto inay fikirnaa oo isku warqaba oo macnaha maadaama adduunka sida hadii aragas aw miskirnaa in isku warqaba ma waa dibina ee marka sartii hal isku warqaba hal isku meelaha isku dijeesooyle marka insha Allah kulli iskadala yaa kulli nimid taaso waa barnaamijka kulli aan doonta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جاليد بدوشة iyo yani bulshada jaaliyadda insha Allah inay la kasoo oo soo waayay oo saddex sheeri iyo hooli liindii oo sajaalka ay leeshada dadkan oo suulan ayo kasaaro aragana kasa ibrahim iyo ay insha Allah hadana may kuma yani gudoomiye jaaliyadda oo soo support insha Allah yani kelmadiisa insha Allah ugu horeyntii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib yani waxaan rabaa si kooban ana uga hadlayo ujeedada yani jaaliyadda loo asaasay yani saad la socotaan yani wadankeena wuu burbursan yahay dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay yani ilaa haatan ku dhowaad 18 sano ku dhawaad ama 19 sano burburkaas gudaha wadanka door ayuu ka qaatay dadkii wuxuu sababay inay dadkii barakacaan wadama shisheeye aadaan yani dadkii gudaha ku jirayna musiibooyin iyo dhibaatooyin xoog badan ayaa ku dhacday ama mataqaanaa min naaxiya haddii loo fiiriyo tacliin la'aan caafimaad la'aan iyo wadankiioo istiqraar lahayn haddaan kaga soo gudbo
dadkii oo mataqaanaa iyagana soo haajiray wadamadii shisheeye iyagana problemka sidoo kale ayuu mataqaanaa ayuu u qabsaday waxaana ka mid ahayd isku xirnaansho la'aan mataqaanaa iyagoo mataqaanaa wadankii aysan afahmaynin iyagoo mataqaanaa wadankii ay ku cusub yihiin qawaaniintii iyo wadankii iyo wixii oo dhan aysan la qabsan karin marka waxay taas keentay in mataqaanaa odayaasha ilaahay khayr ala siiye in arintaas ay ka murugoodaan ee mataqaanaa in badan ay ka fakaraan sidii wax loo xalin lahaa arinkaas marka shirar badan ayaa soo jiitamay ma hadda halkan kuma soo koobi karno in badan ayay socotay kulmo badan ayaa jiray kadib arintii waxay kusoo gabagabowday in maamul hagaagsan loo hagaajiyo mataqaanaa jaaliyadda Digili Mirifle tiina waxay keentay in la isku afgarto in maamul gudoomiye loo hagaajiyo anagoo gudoonkii ah iyo ku-xigeenkii iyo qasnajigii iyo gudiyo hoosaatiyo sidii mataqaanaa mujtamacaan oo jaaliyadda ah sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyin waa jiraan markii qofka halkan uu yimaado oo wadanku ku cusub yahay wadankii ma kala yaqaano luqadii ma yaqaano ama ilmihii ayuu rabaa inuu mataqaana iskuulku geysto ijraa'aadkii wax u dhameynaya ma laha qofka hadduu xanuunsan yahay wax garabkiisa istaagaya ma laha arintaa kadib waxay keentay in nidaam loo hagaajiyo qof walboo dhibaataysan in jaaliyadda uu la soo xiriiro suu mataqaanaa dhibkaasi oo garabkiisa la istaago tii waxay keentay in isku xirnaan la sameeyo oo odayaashii ay ku dadaalaan ilaahay khayr ha siiye iyo mataqaanaa dadkii qayb weyn ka soo qaatay ama fikrad ha ahaato ama maalgelin ha ahaato in arintii kusoo gabagabowday in maanta nidaamkii lasoo dhisay mujtamaca jaaliyadda Digili Mirifle in la hor keeno dadkaas si mataqaana u bartaan dadkii mas'uuliyadda qaaday saad la socotaan jaaliyadda waxqabaday samaysay waxqabadkeeda waxaa ka mid ah xafiis ayaa mataqaanaa ayay furtay xafiiskaasoo oo mataqaanaa xaafadda Madiinatu Nasr aan ku leenahay sidoo kale waxay samaysay astaantii jaaliyadda sumad u ah u noqon lahayd guddiga jaaliyadda wuxuu caawiyey dad badan ayuu caawiyey oo ha ahaato mataqaana ka fikra ahaan ama ha ahaato min naaxiya khidmaad uu u sameeyey haddana waxaan jecelnahay inaan mataqaanaa inaan iskaalmaysano oo wixii wanaag ah oo aan isku kaalmaysano إلهي سويري إلهي سبحانه وتعالى وحوير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحول بولد سو أهداف أي اللي هاي أنا جا هدف كأن لينا وحيت هاي كو جاليد يعني جاليد دينا أما مجتمع عينا عن كذا لنا متقانا إنا هجاجنا عن إسكوها بينه dad dhisan oo isku xiran oo isjecel oo kala dambeeyo ay noqdaan hadaf kale oo maanta oo loo asaasay ma jiraan tan labaad in dhanka waxbarashada aan iska saacidno hadda waxaa la rabaa macad in laga furo mataqaanaa deegaanada ay leeyihiin Digil iyo Mirifle oo hadda nidaamkaasi dhawaan in badan uu soo socday hawsheeda hadda naftigeeda gabagaba ay ku soo dhowdahay marka idinkana waxaan idinka codsanaynaa dadkii jaaliyadda Digili Mirifle haddaad matalaysaan in garabkeena istaagtaan anaga haddaa idinka garabka naga qaban wax anaga aanahay ma jiraan waxa aan mataqaana maanta garbaha dadka naga hayn lahaa waa idinka wey haddaana daysaanna
يعني كما الناس أنا وح أنا هاي المجرم مركا وحان إذا كعصرنا إن دور كاس نشاطات كاس تعليمي جاء أما ثقافي جاء أما دلنيرها أهدان أما أضيالها أهدان أما متقانا هوينها أهدان إن دور وين وفعال إيك قاتان إن وحبرشة داسي لفور الدونة هدو إلهي يرادو haddana waxaan idinku mahadcelinayaa kasoo qayb sida ugu soo qayb gasheen sida wanaagsan aad mataqaana nooga soo aqbasheen taas ayaan idinkaga mahadcelinayaa waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol marka dalkii marka dhibaatooyinka markii TV-yada iyo wararka iyo warbaahinta iyo la ka sheego eed nidaamyaasa yani dadba anfadaana nidaamka shal dambooyowka yani nabadgelyada dadka in arda istiqraarka deganaad dadba anfadaana walku daba shaqeey wada dunyay muddo ka baad yeesha ala dheer is aragnay shaala dheer waa reeyada hal sanad dadun safaylaan hukunti maxkamadda burburti walaahi sidii is ku doran haka nagadeen waqtigeeda maxkamadda gudoomiye ku haytay making la yaab badan ay haka mariya eri making la yaab badan ay oo kiisas oo haka mariya iyo qosol in eray walba walku doran leeyo maahin wal an liyaabna ba ma aragna eray lam yar hakin ku qobday eray lam arimood bis lanko lam qof dili eray habad ismari fokadi duur kala ku qobday aadan jabal iyo bulburdi meel zone sho ee la ku qobday maxkamadda la sheegay eray hebel ma tahay ha hebel iyo hebel ma dishay ha maxaa ku dishay sabab ah yeer waa igu kacday no lam adili waa igu kacday no yeer taas too weeri to lamaad koon muryaan iyo to muryaanad ya may fadhiyaana meel jiire jiiradoo ka sheekaysadayna aman fiid si in sheekaysadayaan tiya may taray waxaan dad la leeyahay maalin walba aniga waligay qof naf baxay ma arkin ma ogtahay abow yeerti qof naf baxay waliga ma arkin miya waa lagu tusaano waliyarka baadi jeeradii oo fadhiya ma ka toosanaan lago dogo wadaadko yaa socdo wadaadka yaa socdo markii hala samay barar xabadka si fiiri no soo naf baxay fiiri no marka walaagas bani aadan walka tilmaamo kore wala saasa suubiyo marka haddii xukum la waayo dowladnimo la waayo nidaam la waayo dadka ma isbedelay xayawaan aan isbedelay yani isbedelay muuqaalka shileys walba manbaan laakiin dhaqan shay ma isbedelay dogaaga aan isbedelay yani isbedelay marka wal kasta nidaam yaka kooya mayliska haysa dalka mayliska haysa lansed bursi fadaaw wal usan lahayn wal ku badan fadee haddii wal usan lahayn wal ku badan usan fada may kooya lankaas kala hajay wal ku mid ee fadee lanka kala usuna arintii aday ku dhaqaaqay diide lamadaas madan isku hor kooya digil mirflaaga reeyo may ka maagmaagaday lam urshay tilbuyti illa urshay yasbuy koona qofkii yase koona tibala urshay buyti lamaadas mis walaaladayaan fiiriye Soomaaliya marka
aan haddii walagnagana gawmale dadkun walaalo waana ee doogana ka doo maxaa tiri ee ka doo ma eraayana ma eraayana mahmaahyo badan ka jiraan oo shashal gedisan dadka hooba meelaniska kooy sidii xagge ay habaqareerado ka toosowshay yaraaday may weelay gardoorada inta badan gardoorada haddii la ninka kaalmayaana walaan dhii dalka maka dhihi lahayna way baaraayna run sheeg waa ceeb sheeg usmay run sheegna may la sheegay marka arrimahan Soomaaliya ku dhiyohay may ku dhiyohayna dad xaq daro san bursi wal ka fadaaw aan haddii walagnagana wal masoodayan le kootiitis reed marsadi tiitana kiila laha kale tiitis reed aan jarta kiila laha ilay deegaanku ku kooy deegaanku ma roogo deegaanku su kooy dada roogo oo ka dhaganaay boqolaal sano haddii isu kooyo oo ixtiraam iyo nidaam iyo sharaf dadka in kala dhagana dadku isu ankooy isu in kala dhagana may ka dhagamne wasuurtawaase dadka madaas inuu isu yasaba waan wala arayo inuu isu yasaba yasuurtu kale inuu isu damaco kiimeel roogi walba mihiidi inuu isu ero inuu isu hawrturum kan markan usun wala kasi se ka suurtawaase reemadun isgalka meela ku bilawde marka may rajeeyeen in Soomaaliya aqlaga iyo kasmada inay taliyo oo qoriga intaleen hata aqlaga qoriga maraaxilka may ka jarnay aqlaga qoriga aqlaga kala ma jaro lama lan waa isgalaas waa isdarbaan jir waa isfeeri jire hoob dooliska naga hore leeko meel qoriga ku ogayleen hore hore lan ka dilay yeli marka may rajeeyeen إن شاء الله تعالى إن إلهي حالة الصومالية سدها حتى إلهي كبدله ومتأغلج إن إلهي هنجا إن إلهي هنجا دعانا ده إنه كوين أو نطالني دقيلة مرفلة دبعت دي الله بالله بنتا دعانا ده كل هدي لهم فيري ما يجرى dawlad kasta iyo ummad kasta deegaanadooda may buaha deegaano degan oo satal ah oo dadday aaminsan inna tacbadaan waliyo tacbadeen inay ka noolado waldadow niyadan siyaada inay hadaltaan yaa an badan dadka kan yaa an badan walow hata dhaqamo badan oo yoon lahayn ha galeen may walay dhaqanku waa lis baraaw marka haddii saadis irmaanka godyeyn walaa onka jaraan beertan walaa onka bahaan dawladu iswalba maqumaqum waldadowna ma fadaaw gobolada bershoona ilaahay ba hortaba dhulka inshar hoonaaday may waalay dhulka isku halma ah dhulka saxraa waaye lama degaan waaye dhulkoona dhul sarac leh oo wabiyada durduraayaan meel kasta saaso koofaraad la ilahan jeeda wabaga meel injeeda lay dadkan injeedaan wabaga intaa ku bilawday Itoobiya ku qooye Soomaaliya ma ku galay beledweyne zoonka beledweynaha ku galay koon way ku galay zoonka doolaw iyo luuga ku galay lamadu shabeelle iyo Juba tallaabo kasta tallaabada hoos ee wabaga hoosaan degay ayaa yaraaday wabaga
koorsadiinku kuway haye yaraade kuway ka dhammaaday haawaya ka dhammaade kuway ka dhammaaday goobiyonga ka dhammaade markan dadka wal hegaas injeeda ma leh wal inta injeeda leh webiga la socdaan may weelay nololeeshaanti California iyo Texas dadka America gordayaan isku hal ma marka nololo meel kasta dal kasta umad kasta saasashaleen marka dhib badan yadeeri oo ku badan Soomaalida kale ku badan may weelay meel lahan baaw nolol ha ku inta wala nisku kooyo waa nagad marka dhibaato badan yalaha maray حتى نفتت نبد ماء ساعدهم هتلرو أيام مقوم إلهي لأن يرد يلو كسوجو هاي إني يوتلا فيل هلا نقدام دلك هو جامين فيل هلا نقدام نقال فيل هلا نقدام بناء ما يلروج بناء سد لي يلروج سد تا واي سد تا سديد تعمين تعليم تعب إيه توبة سديد هو بقف كبير دري مجرى إني اللي تعبدوا إني أرضي تعليم لك ورسول لما إن كلا توبة اللود نكتب سديد بقف كهو بحال النقدو دتكي هرتس روغي ولا نعي هدي سديد بير دري نخساري دتك مركن إني لوكاسي هوبان oo lagu sugo hay may baa dadka yar yar oo dhalinyarada ah oo walbarashada ka jara may wala jiil bedele dagaalki una nadali khair ala si heerahna deersiin may magaan hatta inta ka fadhiyana digil mirifle la raab ma ban ko yafanab isam la ka deeri oo naftis mala ka deeri fanab wal badan in la shal gooyo wal badan la tirtir magaan wal iska day dadana gaar ay kula iska deen hana deersiyeen hatta usuun hatta leeqleeqado hay runta marka aan sheego leeqleeqado hay ashma marka maysiin ka gubaabiyaan iska hirinaan yasiin ka gubaabiyaan dadka maamulka isan suubsateen galansiyo siin ka gubaabiyaan isan isku warqaba siin ka gubaabiyaan dadka gudaroog oo dalka jarse wala ka qobda in masqantin ku wiinati yasiin gubaabiyaan jaaliyadaha kale oo noo dhaqaala room oo Yurub iyo America jar inii una aragday baaqan jeedana una dirno waraaqa dirno la hadalna mar walba la hadalna barnaamijyada inta la ku soo bihay dhaqaala ma laha hayo la barnaamij ma ilaa heer kuma deersinay kaalmada ku jeysada la deegaanada la dhiso dadka la dhiso dadka hoggaan walbarasho laanta ka aragday lan soo biyo wala lan soo biyo ka toosan lan soo biyo marka eed waqtiga dheeraadi doogan waa basiinka badi may walay doon yoonay dooku fayl oo ku badan sheego fanay waqtiga ayaa insaan maxaan marar badan inay kulumno yeelna insha Allah may siin rajay khair horumar guul midnimo yoona iska hirinaan wabillahi tawfiq إن شاء الله يعني ما أدوم وين يروح تعليم كتاب يتوبة وأنا أبدأ من كائن تعليم يتوبة إنه إن شاء الله ما كده سيد يعني التسكرين أنا ما يمتفق مرحلة توريد يعني أو شيء عبد الله أو سنة يعني المسجد أو يا أبو بسم الله الرحمن الرحيم قبل إني أنا كمريو فيلايتي لانكو ملي ويارك إني وصو كمريو فيلاي برضو أني ننتي يعني هنولا ين ماوير ولا شيء
way baarta jaaliyadun degal imirifla jarooshe iyo tadawrkii hamartii oo meelay yani waliya hamartii intii badan wibani sheegay Dr. Maxamed Nuur Jilay margaret aan weyliga daray hal iskaashaday adduunku Soomaaliya al-Eraw gobol kasto weylka dadaalo hay inay isdhiso maadaama gobolkii dawladii dhaxawal ay ku batay bulsho kasta inay isdhisto haddii hadda telefishinna fiirido amba mailera raadiyaha aad dhageysata caalamka iyo gudahaba weeragaas yani inay talaabooyin horumar ah laga tilaabsadahay madil ku reeba qowmiyadun ama jaaliyadun la eraw digil imirifna ونوي باكو بهوا عسنا ولا راو سياس لكن يوسف القبض كراب مستاوياو بني آدم كانوا يبوها إني يوسف والقبض كراب إني يوسف إنس نسبية خاب يوسف والمقبض كراب تنيد كله والمقبض كراب بني آدم كانوا يبوا حوج كله حوج يبوها نيدوا هو هذا نيد كل مت xoog kasto aad leeta markii muuqdo laga weeray adduunyo sedin ilu ku baaw sedin ilu war weeray jidlaan ilu yaari jidle helin ilu ku baaw langtin lamaad hindood la marfadi jidkaas qab ilu war lam kilaha تنكل ويري عل إيلو نبني إيل كوباو لان هالين كي دوس دالي أول كسره عاقبه ريت كويت منعت عندا ماتي ويري بيه لان إيلو يري هالين إيل كوباو مركو جدي سمعت قطب كومو لانكي سواد بنسانة ستين هاتو ياري بركة لان ديجي اللي ميرف لان هذا لا هاي يعني ميلا ولا لك غيب صوبه لان سادي معه وسكة سادر واحد مركوي وها حال نبر يا ديجي اللي ميرف لو والصوبي حال كي نبر تنجيك لك قدر يي ويعني وسن نفتيس بالكش الشيء وهاي وكمان مات ويبوها مديوس آر ديسين إنك استو عقرد الدمين حلاوت آر دكي ديسي والفيلسوف بيان كهر ويجرتي الشركة تلنيس كوكوي تومي سيد كي سينو أو يعني ولي الذي يجر إثيوبيا لنيس كساد مصر تون لنيس كوكوي جدي لساد جيبوتي لساد ملكستو لساد فريقكم بديل ولا كيف هو اللي يجريه قوميات كسي أفرتون كان أفر بول على سي أفرتون على سي لحدون على سي قلا سي لحدون على سي خيرون كديجي بيرفلنا لبعضين على سي أما توم أفرتون على سي لا وعلى هبته أو يعني دولكي سكستبهات الله حري يا مركوه كي في دمبن كدمبو يتوتان هذا بدرته يتكي على سيمه هي لهذا الشيء في دار لهذا الشيء ريون لهذا الشيء تتكلم هذا الأراضي ولا شيء ونا هذا كم خوص إن مديهور وقاو إني يعني بيلسوي كجته يس هذا الكينغاوي لكن جيك هاري هكذا لكن متوفيق على فضاء ريت إسياس كيو إسياسك يكبر برما آره ولبيان قوات لولا ما ديري أو آره سكور كوينن جيك موقفكم موقفكم في السنة فدي مركوي لنا عند قومياتكم دقيقة مرفلة إسياس كن هذا دافع لما بالتبر إني أدل تول صوبي كرتون ميلون كبير لان كست اجتهاد والفريق إلهي أمتيس بدي أسهبي لما البو ميلرس أوديس وهبي إلهي وهن ندي علمه وهن ندي عقل أو علمه كاس اختيار نقول نقدر مرك اختيار كسمي هو فلاس بروي عابد نقوي أم بأحسن نقوي ولي فلاس نقوي
ilaahay markuu akhtiyaarka usan sii ini un markuu aan ka tag sida xun in ka tag rafalne sida faylan adeegan marka madiana hadalka bilaawaya way dhigay hadalka gaabe marka aan hadalkii intaan ku bahay walwiino aan ka daraan malaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرابو إذا قال ذي يوم يو اسك ده أنا أبتي أيسن اسك ثالثا ده ديجان كوس كأس الدجن ويسد عضياش هرتان شيء يعني هذا اليوم يعني لما هذا ويبقى تيو ياس الدجن جيران واي مرك حقوقها السديد بويل فين الإلالي لان كاست من إلاليو حق الإسلام إلاليو ولا لان كل ولا يعني دنا يوانا دريالو ولا هو يعني إيثار الناس دورو يعني والناس أقلاشي إن لان كاست بس هو بواي إلهي كريم كأصحاب رسول الله ما كفالي خير مهاجر مديح هاجرين مهاجرين تكوين مدينة المنورة أنصارنا ديارك نقدين يعني قلبو فرن إيه أنا قام فرن ديارك نقدين نصر أنصوبيين خير أنصار من إن كفالي إلهي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نفتتيو أنكو دورين لانكس أنصاري نفتيس ولبس أمباحن تيا لانكو ولا جي مهاجر كأن دوره marka lan ka sorto hadii taas in wal higaaga uma isku dareer karo baan jan hoobada wali ada lan ku horto xaqiiq aad iska dhaafba wali ada la haytib aan ogolaatay in walku siida hariiraysan laakiin geeki walaaga nin dhigta siyaaday oo ni sheegay haankayni in goonu haankan wala qool qaaday hoobata yani bini aadan hanuma keliya taas marka hore gudaha dakhilka digli mirfil may la faday in iyo naskiirman in iyo xuquuqdid in is ogolaadaan naftiis lan kasta xaqiiq ogolaada لان بل تنازلات نسوبيان ان ايثار ولا راه نسوبيان او رحما بينهم اسك هذا ناس نحريس لان قبل سغاجي ناس نحريسو دبك داخل خارج من كون مدرسه الدفاع اكور لكن هدي يسوب ادوسكي خارج مره مسكو دفاع اكور marka saasdaraadiya ilaahay kariimka ashaab rasuulillaah may ka faadiyay iniyo gudaaji oo naxariisayaan magaasa dadka khaarijka ana yani odowji oo khaarijka ana difaaci intoose mar ilaahay muhammad rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار ما يكي رحماء بينهم أصحاب رسول الله رحماء بينهم كب كان كل يعني نهري سه قرقار فذي كبد بهذا فذي مركز دتك ولا عليهم الهرد دقيق مرف ما يلقوا فذي ميل كست هو جنب جالية خارج كهاتوي مس داخل كودن دتك هذا إنه أرتو رحماء بينهم إن ده ناس نهري سو أو الجداج وناس قرقار يو دنتي أنت أسكي إنه إيجو إنه إيوه دين تأسكي وقادن ولا شو جداج الصفيسدان يا خارج كمركون ولي دل لير لقيب صد كرة ولي يسليا دين حق هذا كرة لكن هذه يسوق جداج اختلاف يو تفرق جرى ولي يقب صد كرة إما لا ولا تنتظر ولا تجيك جاري تنتظر فرنتس كويتي إني أنا يدك مصر كنول ولا سقب صدان ثم أنجد بيان ولا نشيء أو خارج كوادن ولا جاري ثم داخل كودك السو ما يروقن ولا يعني أنجد بيان لكن هذه جداج تفرق جرى لم جداج تفرق جرى يعني ولا سقب ذكر وان جرى مركمة إيران أو مسكو أصدان ولا نيوان ديجل مرفلا مير كسر رقاب إنه تروح ما بينهم جدالك هذا أو موافقة لهذا الصعود يعني دنتو إيوني دين تلسك هذا هم موافقة بكويت ري والويل بهجا جان في يوم كم ما قال يعني غير موافقة دعاء كودنين غير مختلف أنكار كودنين ما كريم غير موافق دعاء كودنين غير مختلف أنكار كودنين لانكي فسر يا فضل ولا مفسر لانكي أهل الموافقة دعاء ما بنباه عليه فأصلا ما بنباه لان موافقة هو إيه دعاء قبل فورسيس وكذا ما بنباه إلا دعاء أهل الموافقة موافقة ما يبقى فائدة كلام لريه دكتور يعني رهين نكشة كجري دوليا كذا الرأس دنيا مرة هريس ما هو يني لي هو بس سوق القلاو على تابت أكل كوب مخالفة بس قال ميرس جدي من دريره حتى لانكي فضل ونعرض عنه قالوا نعرض ما دولي والكسك على ريهم لان دولي كسان وراه دولي أهربتها كه إسكيرن هو له بس أو تيز على وريه ده إسكوريك سده ميرس جدي كنا قذله ما تصمد من دريره أنا نفتي ولا هرجع علي بجرب مدن بيجي أنا جرب حقيقو مركا موافقة هركس كديري له مركا خير موافقة مرنا أنكار يعني دعاء من باهن خير مختلف لنا أنكار كله نيجي له لأنه بس بك أنكار جيب لأن أهل المخالفة بدي سيء وأنكار جيب فول من باهن أنكار كلام من باهن مركا ديلي مرفلو ولا أنا ما أصدقائي إن مختلف أسكو ديريان موافق ولا رو أو قلوب تيو أو ربه أو مجاملة هاينة بين هاينة أو ربه ولا سكلوك أبصدان يعني ما دام أسكننا قدن أهل دين تو أسكننا قدن دين تو إسلام ثم جيران إيه
deegaanka is degan dad ma dadaalika qaraabo iyo inta isku dhaladiin sidiidas xuquuqoodba in ilaaliyaan حق القرابة يحق الإسلام يحق الجيران بعد ذلك نحرس يونا إيثار سميان كب كان كلا حق شيء أقولان أنا بهو ولا نجنا كاس ولا نجنا إيو كاس خير فلان إيو قبيل إيو فلان إيو السوق إلى قبيل كم الدنيا دون قبي وسو الدنيا ما كاسي قبيل السوق دور ولوس إيه ملا ولوس فايدة عشان أنا ملا إلهي كريم كقبيل وسي أمي لكن ولا أمي معنى شيء القرآن كان ينكداي لتعارفوا بس إن الاسكبار طبعا الاسكاريري اليوم مش معنا ما إن تباغض إيه تباعد إيه الكشل إيرادو الاسكودي إلهي من قتل قال قبيل كده مركا سيدي إلهي من قتل قال إلهي قبيل الاستعمال ابن الله لكن هدي هذا الاستعمال ولا على كلب أو دبات شينو هذا الاستعمال والسفايد يوم لا نقول مركا في نور قبيل شيء ابن الله والاسكو إدولة هو دبكولة اسقاط كرة يفتولة اسقاط كم كرة ولا شل قيب سمو كورونا ما بيبه لأنه جيب ولا يفائد اسم الله ولا هذا جر كويتي تفرق ما كهلاس هذا يمكن هاي سيد مئتان كصدق أنا قابل إيري وأنا قابل فلو إن شاء الله مات ولي ده أساس ولي هو دان هو بلس كله كها دينتي يدل هو كوه بقدر كوه ولد حقله هذا عنك وحكاية لنا إسكراف كواس هذه أنت صوص وب ولا يورس كورشينه نبكات تقدر ما هذا والإنكوال الشيخ أنا تنبه وذي ما تم والكهبان إسلام وان دكير لما ذي ويب تيوه مرجع هذا ولا كيف كباهنا إيه ولا سمي لأن فكرة ولا رجوا أما سكال هاين ولا هانو ير شلمة أو سمدي دنتيس بيدوب حلف هذه شلمة ده حلف هذه تيديس بك حلف هذه أما وديس إيش عرفتيس بك حلف هذه يا هوستل كوكلية برمي أرجع سو شراء أفوس كايتين جيك سو كلن دو كل ده قضية شيء والبعض همرجع إني كشيء أنا تيجي ده ولا هي يعني ده تكون أسكول أبسط واين يتر marka inkastoo dad isku taabatahay noo reer habshin hayn reer dhawaatan hayn haatan la hudurul ka gali oo kala naqdeeno oo mburaarinib yaani la ka fadheedi ila alana la fadhigi la haaya alaanku ila alana dantiyo fahmo way siisa sharif gaday sheegaya kooxdo ma doon dhaqaaga suubidi oo yaani dadku eraw aragad wala ko baad asayso garabka asayso karagan oo ad walaal eta iska booraso isjeelka aragan walakin laqi adimu walkii laqibsa ko ogolaadeen laakiin hadii adib jal jeed ka arag walkii wala qibsata iska dhaafo wala jibi la dhakada han kan kooy usmay يعني هذا الشيء جدك أرجع يعني فرق تسودك يسوبيه كده حقله ولا كيل هذا مركه ما أتصدقنا أما سقط البدانة ولا لا هن الدقيق المرفلة ده كي أنتهى دروجه إيه أنت كلا أو يعني جالها عالم كشل جرته إيه أنت جودها سوماي روان إن حلقه لسك هذا قلوب ترسك هذا إلهي لك أبسط مركور تقوى إلهي يعني هرمتي تعال إلهي لك هجي ثم دنتي ذلك ساسل إره أينس دوروي دوغين أنت أنكو بهي عن بدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أوقات المقول ما ده. بيقولوا أنتوا يجوا هذا الموضوع دلهم بيقولوا ما إن شاء الله ما شاء الله معمول. ini oh insyaallah waktu boleh dari kita suara ramai orang atau mungkin sekian orang hingga saat ini mamnya anak anak dia nanti dia lagi partis dia karena oh karena di tanah toy walwal benar toy walwal benar toy segala dia dan orang sensi tongna oh mamnya ini insyaallah kalau kita tu jarang bila tidak kain orang kita Insyaallah kerana wajib terus menyesal tang itu kusi hormat sengit menyesal itu ngarbo dengan kalau tang kusi dari ini nak tu bila itu fikir saya. Ini oh yang mahu kemarin ada mereka orang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ni apa untuk lagi berada di Malaysia? Ismuhilmen ya dua anak punya. Kau di hesa sima tadi. Tiga itu ham buat ya ni. Saya tiga itu mana? Itu kau melas tu dia nak seduk senama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama yang lain. Mereka ni sekoi. Walau ni saya walau sekoi. Ada nama yang kita kenal. Kenal itu diri mereka. Oh kahir kenal. Ini ane bandita. Pendik banet pendik oh banet oh ya oh mereka uko hal dona wala waktu ini bicara iyo sama itu ini Sekedar urusan
inigu haskul jeesne iska dhowsane inigu haskul jeesne igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune iska dhowsane inigu haskul jeesne iska dhowsane inigu haskul jeesne igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune bismillah bismillah igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune iska dhowsane inigu haskul jeesne iska dhowsane inigu haskul jeesne igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune qabiilkana dheebiyey digwiingana deersiyey dhalaan koraa dhulkiisay dhooro qabiilkana dheebiyey digwiingana deersiyey dhalaan koraa dhulkiisay dhooro igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune iska dhowsane igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune igoi dhaanko ina balshooda ismudan ay gune inshallah bilaw bas ma dare ana ko inshallah remeta wa sino ora ni sa sino kwa inshallah tere dawa ne dawa ko yo pareke inshallah hortan dilana waa xaflad weyn oo aad u qiimo badan lagu qabtay qaacatul mutamaraad oo ka tirsan asaru shariif isla markaana qaacooyinka shirka loogu talagalay shirkaas oo ashir ujeedadiisu taa isku xirka beesha digil iyo mirifle isla markaana iska warqabka iyo sidii looga warqabi lahay beesha digil iyo mirifle isla markaana ku kala sugan dacaalada adduunka isla markaana ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya shirkan caawa oo lagu qabtay qaacatul mutamara ayaa sidoo kale looga hadlay sidii loo horumarin lahaa dugsiyada ku yaala magaalada Baydhabo isla markaana wax ku bartaan dhallaanka digil iyo mirifle isla markaana horumarka waxbarashada shirkan sidoo kale waxa looga hadlay isla markaana lagu guwaabiyay dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana qoomiyadda digil iyo mirifle shirkaas ka soo qayb galay shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dad magac ku leh dalka Soomaaliya isla markaana uu ka soo qayb galay wasiirkii hore ee dawladaha hoose ee dawladda TNG Dr. Maxamed Nuur Jilay شريف عبد الله النورو شيخ عبد الرزاق شيخ سيدو معلن آدن أحمد شيخ يرو يسولدان دبرو inta badan waxa ka soo qayb gala haweenka jaaliyada digil mirifle isla markaana ku dhaqan magaalada Tanqaahira waxa inoo soo ragashay inaan wareysi la yeelano Ibrahim Sheekh Abikar isla markaana ay u calaamad saaratay beesha digil mirifle inuu hogaamiyo isla markaana gudoomiye loogu doortay Ibrahim sida caawa dareenka wiya بسم الله الرحمن الرحيم caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mataqaanaa dadka jaarida digil mirifle inay aad ugu soo qayb galaan xafladan in badan aan soo abaabuli jirnay maantana mataqaanaa ay ku soo gabagabooday xafladda inay dhacdo marka waxaan wallahi ma qiyaasi karo shucuurkayga farxadda mataqaanaa waa farxad aad iyo aad u weyn ayaan dareemayaa يعني waxaan mahad uga celinayaa mataqaana dadkii soo agaasimay dadkii oo fikrad ahaan mataqaana ka soo qayb qaatay ama dhan maaliyadeed dhan fikradeed iyo dhan mataqaana khidmad noo sameeyba iyo mataqaana waxaan mahad uga celinayaa stuudiga Safi bardo iyada mataqaana noo tawfiirisay inay mataqaana laga qaado kaamaradan oo si caalamka u gudbiso iyo waxaan mahad uga celinayaa TV-ga Universal oo maanta hortaagan saaxiibkeen Mahad Carabow oo hadda i wareysanaya aad baad u mahadsantahay Ibrahim wax walba marka la qabanayo waxay leeyihiin aas iyo bilow kulli qowmiyadii digil mirifle isku duban ayaa caawa halkan isugu timid sida ay saxaafadda arkaysay inta aad baa lagu doortay marka waxaan filayaa in cadaalad isnaan xilkaaga aad u gudin doontaan rajaynaya
wallaahi waan maanta wax walba oo maanta haddii cadaalad la helin wax maanta waddanka oo broblem-ka uu ka taagan yahay oo u kala daadsan tahay Soomaali Maxamed waxay tahay cadaalad la'aan wax walba haddii asaaska cadaalad lagu hagaajiyo wax walba way hagaagayaan haddiisan cadaalad aysan lahayn wax hagaagayo ma jiraan يعني waxaan jeclahay si sinaan iyo cadaalad ah in mataqaanaa waxaan intii aan awoodo inaan u khidmeyn karo u khidmeeyo wixii aan mataqaanaa awoodin waxaan yani ka rajaynayaa inay garabkayga istaagaan oo wax la qabtaan qofka insaanka ah wuxuu leeyahay akhtaa iyo mataqaanaa waxyaalo uu ku saxsan yahay iyo waxyaalo uu ku qaldan yahay marka qaladkayga iyaga kara laakiin aniga wixii oo dadaal ah waan bixinayaa hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxaa Ibraahim Sheekh Abikar isla markaana gudoomiyaha jaaliyadda Digil Imirifle ee magaalada Qaahira oo caawa loogu doortay inuu hogaamiyo jaaliyadda Digil Imirifle sidoo kale dhammaanba dhibaatada ka taagan waddanka Soomaaliya isla markaa taa oo 17 sano la soo dhaafay burbur iyo halaag ku sugnayd magaalada Muqdisho iyo dhammaan dacalada ku xeeran dalka Soomaaliya ayaa baaqa ayaa waxaa isla markaa inoo akhrin doono Dr. Maxamed Nuur Jilay isla markaana ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya isla markaana wasiirkii dawladihii hoose ee dawladda Masar ka dhacay kulan weyne ama shir weyne ay yeesheen jaaliyadda Digil Imirifle ee ku dhaqan waddanka Masar kulankan oo ay goobjoog ka ahayeen in dheergarad badan haween odayaal dhaqameedyo siyaasiyiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale ee ka tirsan beelweynta Digil Imirifle ee ku sugan dalka Masar arrimihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow sidii loo dardargelin lahaa howlaha jaaliyadda loona adkeyn lahaa midnimadeeda iyo xiriirkeeda jaaliyadnimo Digil Imirifle ee gudaha iyo dibaddaba labo horumarinta iyo dhiirigelinta barnaamijyada waxtarka u leh ee bulshaweynta jaaliyadda ku dhaqan deegaanada Digil Imirifle ugu dambeyn waxaan baaq u jeedinaynaa qaybaha ku dagaalamaya gudaha waddanka Soomaaliya in ay joojiyaan dagaalada iyo gacanka hadalka una bedelaan wada hadal inay ku wada hadlaan miiska inay isugu yimaadaan bulshada ama dadweynaha taagta daran oo dagaalada 17 sano socday oo ay ragaadiyeen ama ay dhibaatada u geysteen barakac kuna abuureen barakac qax abaaro cudurro iyo dhibaatooyin bulshadeed oo fara badan taariikhduna waxay xusi doontaa qof kasta qaybta uu ka qaato wuxuu qabadka bulshada baal dahab uu ka gali doono ama baal mugdi ah uu ka gali doono wabillahi tawfiiq aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxaa Dr. Maxamed Nuur Jilay isla markaana ka mid ah qabanqaabiyaasha shirkan caawa qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu qabtay qaacatul mutamaraad Asar Sharif isla markaana ka mid ah xubin sare ee ka tirsan jaaliyadda Digil Imirifle sidoo kale waxaa inala taagan gudoomiyaha arrimaha bulshada ee beesha Digil Imirifle Xaawo Nuur Cali Xasan isla markaana ah gudoomiyaha ururka arrimaha bulshada ee beesha Digil Imirifle sida caawa dareenkaagu yahay maadaama halkan aad ku doorateen gudoomiye iyo ku xogeenkiisa waxaan salaamayaa bulshada dhammaanteed kadibna waxaan salaamayaa Digil Imirifle salaantaas kadib waxaan u jeedinayaa inaan isku xirinahay oon hooyo aabanahay oo wax kala lahayn wixii dibadda joogay wixii dalka joogay dhammaan dadka Qaahiro joogo isla markaana caawa halkan isugu yimid oo ka kooban qoomiyad Digil Imirifle dareenkooda sida aad tihiin aad ugu faraxsantiin Soomaa aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalayaasha abaabulka intii banaanka joog intii dibadda joog kulligood salaan bogaadin ayaan u jeedinayaa daladay dhiig bahay dhidoodiis qubati dhiig walaalshay indeedahi dhalinyaro dhulka xubin sare oo ka tirsan jaaliyadda Digil Imirifle Khadija Xasan Caliyo Ibrahim isla markaana ah haweeney isla markaana in muddo ku noolada qurbaha aadna ugu dhax shaqeysa beesha Digil Imirifle oo aan caaw weydiin doono sida ay ayadana dareenkeedu yahay Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma siin sheege horta aad iyo aad u mahadsantaa shirkan geeg la suubi ka faraxni waayo maba aragnaba inta 7 sano rooga Digil Imirifle sideen iskoo ibadkayba ma aragnaan geeg aad iyo aad aan faraxsano maadaama aan is aragni dad in is arag jirna bankale iska kasjin had sifay in is barniya jiro hatta madaxda hatta shabaab hatta bilaanto inkasto gudiga maamulka hay una laakiin
weliba ma la isbaranay geega waa ilaa la fadaa in la isbarado la is araga waana wala is aragi iyada aan ka faraxsano waana jecelyo sida isika daran intiin fadheeno in iskooyno ismaamulno isdoodheegno madaxda doo ka dheegtaan unana ka dheegno isan doogi isan niishaantaan tixgelino walbarashadeen ka fikirno walaagayna ka fikirno una waqtigayna dhammaaday laakiin isagaa siin howlgaloyno howle isagaa siin hayno un howle malana un waqtigayna dhammaysani haddii walnana bari iyo haddii dayuurnana saari ha dhammaysani waalidkayna nin dadaale ana isagaa siin dhalni iska hirnaada iswalaalsada kii korjiro walha aragooy kii gudaha rooga siin ogaadoy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana siin ka faraxsana aad iyo aad ayaad u mahadsantaha taasi waxay ahayd khadiija xasan celiyow ibrow islamarkaana ah xubin sare ee ka tirsan jaaliyadda digil iyo mirifle ee السلام عليكم. سلام الدين دكتور أحياء وقريب جنبي كلكم جايين من الأوان وما نقعنا نحكي شوية عن الدنيا يجي نحكم عن نقعنا ما يكلم أرجع عن غير رياض أو شيء رب كل هاي جايين تيجي لنا عن السنة تيجي أو الموش ويدخل هذا إن كلا إن كسو رياض بشون المرتبة يعني كويس ما يبغى سيمبرجة إني أمني لا أنا ما أدري كان يصيرون يقول لي معنا ما يتكلم دين اسمه ترى معناها ما كله يعني تقول لي رسالة واحد يعني نخدم أو نخدم بدل كتير لو بقول لنا ما في اللاوات لكن أنا كيف الله يدرس دي يعني فايز يعني إني نخدم تكلم فايز ترى سومالي كتير فتي نسمع نخدم أنا كلام يطلع سيجيني هذه تجاري تقلي من الورا لا يروح سرعة سريع يبي فلان يتني الوقت ما قال أنا قال أيه تقلي في الوالدين يروح الناس الآن سومالي كلام معناها ما يقال أنا قال تيجي لكن كل قربوس هذه وقاعد فرطاس ما يقول ما كذا تجي تشكال مراس ما هو قال ما يقول خميس سيد مكيرة تكير وتن كيتا Somali hatta Somali oo beeto markay Soomaalnimada ay ka qaabil nagane magaca musika san Somali oo wada naqon taasoo si ku rajo billahi gudud idara oo qasnada jaalida ay soo noqon salaadii aad u mahadsantihiin marka waxaan ka bilaabaa maxalla odayaasha noo soo jibeen inay naga soo qabtaan xafladda qiimaha ee qaayaan mudan marka koowaad maxaa maamooyinkeena oo ka geystay maxaa kaliya maxaa dhiilaayay kaalid weyne كل هذا فقط سبب سبب على حوالنا وسيلة السماء كتوه كسودار الأمامين إلى سبحانه وتعالى وضع مكان مصير سير كلام يرضى إلى حوالهم ملك جسدين مركب وحالنا خير الكلام ما قال ودن هذا الله محلنا يقضي شهر لين تفضل حمدين أنا وحنا إن شاء الله تطلق صغيرين أذكرنا كل هذا يبعد مر لكن إنا بكم العيال وما تنتهين مركب حتى يعني هاي إن سوق إمامة لأن الله بيصحته الخطوبة لأن كان لك أن تضرر إلى نعاوه في العمر مرة خلق في ما لا يقول كالملك ما شاء الله إلى كل جنالين حرر كل مجتاز وأهاله لأن واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا إلى اسم بدلين كل يحاول لنا أن مصر وإيماني وأنا على بيت ولي على ما نصف مصالح معي أن تمين دولة وفقناها أنا من أسوان أنا من بدل الشيء قفقروا كل شيء لي ما سيجي سوى شاسي ما أكيد لكن أنا من يجاهد ما نسير سبحانه وتعالى لأن الله يتعارفوا الله سبحانه وتعالى ولا يتعارفوا ولا يتقاتلوا مدين ولا يتفرقوا مدين وفي شاء الله أن يحاول بسمنا شاء الله سبحانه وتعالى تبتيسه سواء الحسن أو شيء أن لا نتعلم أنت مسلم يجي مع هذا أنت من تقول لي تقول هم سوماليا خلاص تفخر حق سمع على يا من مسألة وكذا أنت من يقولها أنا وقولها رحيل أنا طريق الشيء أنا كيسي كيسو استشعار إذا مسألة مقدمة سوماليا فبلا يقدر حقيقة وسمع إلى وتصور أردنا أن تحكي ما الله سبحانه وتعالى خير ومجد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. اوكي هذا برنامج او مسؤول جدا عثمان قاسم موسى
والله أنا قد جرى حلقة سيدا لسين شاي وحكا لديرات ولينا عصمة حايا كان روشي لني ملعاي بحيان باهنتا إني لقرب قرأي باهنتا والني ملعاي كان يلانا مصحابة كرم حرام باهني مركزة قرأت ملك من نوطرة قرأت بنح من نوطرة متسان فيها يا مصحابة إن شاء الله هنا من بلان تعالى سيدي خالد لما يكمل عارف حلو كان سنين كتير إن أنا كسر أنا حدثي هاي بقى واحدة من ماشية إن شاء الله تعالى تنكلا إن أنا مستقل علينا فرقنا ولن كفر فرق تسد وأتي ما أنت لك شكرا إن أكثر لك سبعة ذلك أنا من أكثر لك سبعة بس الوقت قوة رسله الدنيا قسمتها أنا وأنت سبعة من أكثر فرق تسد كان الجو كان قاد شل بي شل صار كتبنا على الحكم أصل من المركز تبليغ كان مسؤول عن كذي من كان ما ينكر ما ينكر تراوي بتيجا من كان في مساس نملاوي من كان ما ينكر تجنيوي إن علمها نسكوا علمها وحيانا صرف كذا مشان كذا إبراهيم حق على حالتنا مستقبلك إن شاء الله تعالى ليش أنا كسر هذا هذا يكون إن شاء الله تعالى iyadoo caawa ay tahay caawo taariikh ah isla markaana 24 bisha koowaad sanada 2008 ay u tahay jaaliyada degel imirafle ee ku sugan magaalada Qaahira inay tahay shir weyn isla markaana waxay dadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Qaahira ay fili doonaan sanad waliba shir noocan oo kala ah Mahad Carab oo Cali telefishinka Universal Al Qaahira Digo,